waxa jirto falanqeyn badan laga sii bixiyay waqtiga la qabanayo goobta ka dhacayso sida looga soo qayb galayo nidaamka waxa waqti juudi la galiyo lagu bixiyo dad badan kale ka shaqeeyay كل أنتي دب عيارت أنتي دب وردن هرت وحي كل ماتي سأل حسلوني هاينو محيتي دت قردن أي شعب كي جرون كسوق قلنا سوق كل ماشي بولس أي رصاص ردين سوق كل وحى عرقني أو محيتي فيديو يدي دت كدوبي جرون كل لحسقنا أي دوبي وحى كل حرقني دت محيتي عن بولس هاين حدنا قرية ستة ومحيتي حبة ردية balse ugu dambeyntii inay ka saareen ay geeyeen meesha maxay tahay kulaalka hoose maxay tahay garoon ku leeyahay maxay tahay dharkii waxa la iskaga bedelo maxay tahay dadkii intii ilaalinay gaarsta gaarka loo ilaalinay la geeyo kamid ah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودا صعبتك على جميع كستادون كجكتان وولالكين حمزة محسنية سيدا كلا ولالكين شافعي كرت فضل الجنة كي قطع قصبتها لنا سبسكرايب نصرت وشكرا فيديو قلنا لايك صارت لنا في وقت صعبت هذا سنة نقرنا فامل بلارن أدو مستلمانتي مانتي مقال عصب معاي مقال عصب أن أودي شافعيها مانتا وإسنوي أوديقا وحاجة هورتا وحسلقة والناس كينا دمبيسوا طبعا مرة يعني عادي إندو هورتا أوديقا وحيتي وعلى كلام مشغولي وحيتي وح فيديو إسلام عنا صومين لكن سوى سلشوغنا إن شاء الله قار كلام بدنا وعارك دونتان وحاجة على صحابتي دي نعاول لو داقنو كل حوجة بدن أو نجسوا قاعد دنك يوم حياتي مقدسه في اللاتنك ساعة ودن بيجي اللي كرنا محا شري ولا شيء محيطة اللي عندهم عيار ولا حيسا يوتيوبر هذا يجسوا كلام محيطة ورياش عادي كل اللي لبك بتنا وكلها محمد يسوع كلام labada sano waxay u kala hayeen labada kabtanka wata maxay tahay youtuberada waxa CK sidoo kale dhanka kalena wariyaashan waxa watay Maxamed Qadar oo labadoo laba qof oo maxay tahay aad loo yaqaana kulli ciyaarta waxaynu ogeyn inay maxay tahay shalay galab ka dhacaysa magaalada Muqdisho garoonka Stadium Muqdisho balse waxa meeshii yimi dad maxay tahay aad u tiro badan oo aan la dhihi karin 1 iyo 2 3 toon garoonka maxay tahay soo buux dhaafiyay taageerayaashii labada dhinacba haday wariye noqonayso iyo haday youtuber noqonayso aad iyo aad meeshii waa la soo buux dhaafiyay marka waxaan soo aniga saaxiibkii Shaafici aan jeclaysanayn asxaabteyda la wadaagno dadka qaarkood waxay sheegayaan maxay tahay ciyaarta haafkii dambe ama intii dambe in ay ku dhamaan yani xasulooni ku dhamaan oo maxay tahay nabad ku bilaabantay aanay ku dhamaan balse aad iyo aad ay soo dhaxgaleen intii ugu dambeysay inuu qalalaasay weyn maxay tahay ka soo dhaxgalay oo meeshii maxay tahay xabad iyo ay timid dhagax in la shiido waxaan sidoo dhibal wixii fikirkiina maxay tahay meesha ka dhigto dadka qaarkood waxay leeyihiin CK waxa ka soo gaaray meesha dhaawac فيديو بس أخذ دعواني أرياد dadka qaar waxay leeyihiin ma wuxuu ku dhaawacmay xabadii meesha ka dhacay xabad kamid ah wax yeeshay dadka qaarna waxay leeyihiin ma maxay tahay kubadii dadkii dhagax tuuray maxay tahay shacabka garoonka taageerayaasha joogay baa maxay tahay dhagaxii wax yeelay si kubadda dadkii ula ciyaaray ayaa wax yeelay taa wali lama garan maxaa la Shaafici والله ما شاء الله أنا سيدا وده واحد إلى هذا وضع الحظ كل جيم ما شاء الله سيدا هرما ويقول بديات أركا سيدا كده وجيبه هرتا عيارته وحيد عيار كلول وحماسة دي هذه محكولة كلول يعني محكولة هرتا CK وكل دوا عندك شيء يعني كل كم ورهنا حتى إنه نبات قبوا حتى عفمات قبوا إن هذه اسمها محكولة تيمو وكل دوا عم كراك وبدي تدك عيارين إن مثل الشعب كي محيتي مش joogay dhagax bay tuurayeen oo maxay tahay ay dadka ku tuurayeen dadka ciyaarayay hadii boolis noqonayso mise booliskii xabad riday ay kula tahay maxay tahay wax ku noqday taasoo kale fiideo badan waa daawata umaleynaa ana way jiraan fiideo badan oo aan daawaday ugu dambeyntii la soo geliyay xagga social media fiirsanay marka ani saa u fahmay una daawaday ma ila ahan yani qof ay xabad ku dhacday waayo markii CK fadhiyo garoonka waxyaabo dadka yani imaadaan oo caawiyaan qofka markii xogaa injir sidii qofku maxay tahay kubadda wax ku dhex noqdo kala dadkii loogu talagalay inay qofkaas caawiyaan imaade oo daawooyin iyo wixii markaas macquul u keenay laakiin meeshii laga hayo markaas laga bixinayo ama iga jiciy u dhahay waxay ahayd lugta meesha isgoyska ka tahay baa qofku muruq uu ka murugacday wax ka noqon karaa sidii yaamna loo toosinayo iyadoo wali qof waxaan arkaysan in ay qabanayeen in loo toosinayo loo toosino laakiin meesha marka hadalka dhageysanayo wax xabada iyo waxaasan qalalaasana kama sii jirin marka waxa isku imaadeen aan dhigi karnaa aniga
CK يعني joogtiisii iyo qalalaadsadii kaleeto markii ugu dambeysay ciyaartii kulley intii dambe oo dhan horta waxay ku dhamaatay si aan xasilooni ahayn oo maxay tahay dadkoo dhan ay shacabkii garoonka soo galeen soo kale meesha boolis ay rasaas ridayeen soo kale waxaa aragnay oo maxay tahay fiidiyoyadii dadku duubayeen garoonka ku dhex sugnaa ay duubayeen waxaa ku dhex aragnay dad maxay tahay aan boolis ahayn haddana qoriyeysta maxay tahay xabad ridaya dadkaasi horta waxay yihiin waa la garan waayay xataa الآن لما قرنت كاس waxay yihiin dadka qaarba maxay tasbiix u fasiranayaan waxay ay yihiinba ma dadka shacabka ahay dadka kala taageerayba ma dad maxay tahay qoriyayska sitay ama qolmiyooyin kale aad midna lama garan balse ma jecelina maxay tahay saas oo dhan ugu sii dheeraana maadaama aan xog aad u tirbadan ma jecelina in saas oo dhan ugu sii dheeraana waxaan jecelnahay waxaan siniriyoon fakarkeena oo inaan ka dhiibana anaga waxaan aragnay adinkuna aan la aragtaan anaguna aan fakarkeena ka dhiibana sidoo kale adiga hadda daawatana fakarkaaga waa muhiim in dabcan inaan committee noogu rantan doontiba wixii aad aragtay wixii ka fahantaba waa marka waxaan dhigi karnaa horta yani siwna waa lagu qurux badan yahay dabcan ciyaartii wariyaasha iyo u dhaxaysay youtuberada waxay ahayd ciyaar aad xamaasadeeda u leh ka hor inta la bilaabin ciyaarta waxaa jirto falanqeyn badan oo laga sii bixiyay waqtiga la qabanayo goobta ka dhacayso sida looga soo qayb galayo nidaamka waxa waqti juudiya la geliyo lagu bixiyo dad badan oo ka shaqeeyay marka dhalinyaro badan oo ka soo qayb galaysa jirtay meesha oo maxay tahay dadaalayo jeclaa in maxay tahay ciyaarta ay ka qayb galaan waxaa jirto falanqeyn badan oo laga sii bixiyay waqtiga la qabanayo goobta ka dhacayso sida looga soo qayb galayo nidaamka waxa waqti juudiya la geliyo lagu bixiyo dad badan oo ka shaqeeyay marka dhalinyaro badan oo ka soo qayb galaysa jirtay meesha oo maxay tahay dadaalayo jeclaa in maxay tahay ciyaarta ay ka qayb galaan bacdina boolisku wuxuu isku dayay in maxay tahay difaaco si kii laftarkiisana waxa la yiri garoonka markii uu qulubku bilaabmay waayo qof caana maxay tahay dad jecel iyo dad nacab labadaba uu leeyahay halkii ahayd in laga sii daayo oo sagal laga dhex saaro markiiba dawaayo qof caana wuxuu doon ku dhex noqon karaa dad jecel iyo dad nacab labadaba uu leeyahay waxaa la sheegay in garoonka cabaar lagu dhaxayay deetana maxay tahay shacabka intii nacbayda kooleytiga wax ku nacbad leedahay maxay tahay lagu soo yaacay oo booliskuna isagana difaacayeen haddana ay garan waayeen maxay tahay banaanka uga saaraan balse ugu dambeyntii inay ka saareen ay geeyeen meesha maxay tahay kolaalka hoose maxay tahay garoonku leeyahay maxay tahay dharkii waxa la iskaga bedelo maxay tahay dadkii intii adii ilaalinay gaarsta gaarka loo ilaalinay la geeyo kamid ah dabcan si kaliya ma ahayn dad badan jiro caana meesha soo wada qayb galay oo si gaar ah loo ilaalinayay runtii deewan iska jiraan qof markuu caan noqdo yani waxa jiro aqalaaso badan oo kala kulmay xagga bulshada marka aniga qodobkan ku dhagana waxay tahay pointigan ka hadlay dad badan waxay jiraan ifan ku cabanaya dadka youtuberka kamid ah oo dhahayeen ciyaartaas waxay u baahan tahay in mar kale lagu celiyo maadaama bulshadii ka soo qayb gashay dadkii juudiga galiyay waqtiga ay si u noqon si qurux badan oo loogu talagalay isugu dhicin dad qaar waxay ku cabanayaan ama ay codsanayaan in mar labaad lagu celiyo ani laftiga xataa aan kamid ahay waayo dad badan waxaa jira ka soo qayb galay oo yani daawan sida loogu talagalana ay yani isugu dhicin ciyaartu mana jecli saas oo dhan ugu sii dhaarano waxaan islaan maxay tahay wixii fikirkeena oo la wadaaga asxaabta waxaan rajaynayaa dhammaantiin bayna ka wada hesheen muuqaalkan waxaan ka tegaynaa saasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu